sargaal ka tirsan ciidanka gorgor oo lagu dilay magaalada Muqdisho. Koox hubeysan ayaa xalay fiidkii ku dilay degmada Madajir ee gobolka Banaadir sargaal ka tirsan ciidanka commandoiska gorgor ee dowladda Soomaaliya. Dable ku hubeysan bastoolado ayaa la sheegay in sarkaalka ay toogasho ku dileen xilli uu ku sii jeeday hoygiisa oo ku yaala degmada Wadajir, kaasoo uu geeriyooday rasaastii ay la dhaceen kooxdii bastooladada ku habeysnaa. sarkaal la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Yarami, kaasoo ka mid ahaa ciidamada gorgor ee tababarka ku soo qaatay dalka Turkiga. kooxdii dilka u geysatay sarkaalka ayaa goobta isaga baxsatay, waxaana halkaas saacado kadib gaaray ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasoo bartilmaameedyo ka bilaabay xaafadda lagu dilay sarkaalka, mana jirto cid loo soo qabtay dilkiisa.